بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan idin ahaantiin biidin rajeynayaa badqab farxad iyo reereyn waxaan idinku soo dhaweynayaa foolfurnaan farxad iyo laab xaaran anigoo matalaya shabakadan milgaha badan ee ku suntan xigmadista tube marka xigta shabakadan ama kanaalkan waxaan isku weydaarsanaynaa idinkulana wadaagaynaa xigmado dhiirigelin barnaamijyo caafimaad warbixino mug iyo miisaan badan oo huwan dhambaalo quseeyo nolosha sidoo kale xirnaashiyahaaga kanaalkan ma noqon doonto mid lumiya waqtigaaga bilaa faa'iido ee ba'idankii balse waxaad ka daalacan doontaa murti aqoon iyo waayo-aragnimo badan oo ka saacidi doonto hardanka aad kula jirto gungaaridda yoolkaada oo aad uga taqalusi karto hirarka adag ee ku gadaaman kuna guntan ka dhabaynta himiladaada iyo mihnadaadaba sidaa darteed moogaan oo ku soo biir shabakadan qiimaha badan oo subscribe garee gambaleelkana furo si aysan kuu dhaafin macluumaadka aan ku soo gudbinno halkan insha allah haatana ku soo dhawaada mawduuceena maanta oraahyo iyo xigmado laga yiri nolosha inaad u noolaato si kibir iyo isla weyni badan si istustus iyo halaga sheego ah kaliya waxay kuwan qof ka dhaxal siiyaan inuu waayo deganaan maskaxeed kuna noolaado nacayb iyo caro dadaal iyo qiimo badan waxaan ku bixinaa xirashada dharka ugu qurxoon iyo kuwa ugu qaalisan balse waxaan islowsiinaa bedelista dhaqamada iyo dabeecadaha guracan ee ku sidkan nolosheenna ogsoonow weelka qaaliga ah qiimaha badan marnaba ma sameeyo cunto dhadhan macaan ha ka cabsan inaad isbeddel samayso ha ka cabsan inaad fashilanto ama dhibaato ku soo wajahdo ogsoonow haddii aan mugdi jirin marnaba maadan aragteen xiddigaha dulqaad yari iyo degdeg waa xididaha dhibaatada ma qasbi kartid noloshaada inay ku siiso jawaabo ama sidaad rabto wax kasta u dhacaan waa inaad oglaataa in wax kasta iyagu isfurfuri doonaan waa inaad aqbashaa in wax kasta ay waqti qaataan howlo badan ayaan dib u dhiganaa innagoo leh waqtiga habboonayn waqtiga habboon waa dhalanteedka lama qaban karo ee ereygaas ka siib maskaxdaada marka aad go'aan gaarto ee aad bilowdo fulintiisa waxa keliya ee kuu muuqda ha noqdaan in aad natiijo ka gaarto wax kasta oo taasoo ka sokeeya daniyaysa kaa gelin shakhsiyadda xoogga leh micnaheedu maahan inaad ku hadaaqdo hadallo liito ama afxumo ah ee shakhsiyadda xoogga leh waa xigmad ee maahan afxumo wax kasta oo daciif kaa dhigi kara muuqaal ahaan maskaxahaan iyo caqiid ahaan ha yeelin oo ha qaadan waa sunne waxaan ka oohinaa kuwa ina daneeya waxaan u oynaa kuwa marnaba aanna danayn waxaan ka cararnaa kuwana jecel waxaan eryanaa kuwa aanna jeclayn tani waa murugo balse waa xaqiiq laakiin goortii aad garowsato waqti kaama tegin inaad isbeddel samayso geesinimadu ma ahan inaadan cabsan geesinimadu waa in aadan u oggolaan cabsidaada inay ku xakamayso dadku waxa ay yidhaahdaan ma garanaysid faa'iidada iyo qiimaha waxa aad haysatid ilaa aa weydo laakiin xaqiiqdu waad garanaysay waxa aad haysatay ee waxaad u qaadatay oo kula ahayd inaadan weligaa waayi doonin haddii aad garowsato waddadii iyo habkii aad ku fashilantay waxaad ogaanaysaa sidaad u guulaysan lahayd ammaanta dadka iyo farxad gelin qalbigaaga si aysan kuu muruga gelin dhaliishoodu waxaa halkaas noogu eg mawduucii maanta ee ku saabsanaa oraahyo iyo xigmado laga yiri nolosha haddii ay tahay markii kuugu horraysay ee halkan aad soo booqato fadlan subscribe calaamadda guudan ku dhufo gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya insha allah